بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan u baahannahay dhammaanteen inaan dib isu xisaabino qof walibana uu ogaado in ilaahay subxaanahu wa tacaala berri loo hortegi doono qof ku xiran uunan jirin. marka qofka lala xisaabtamayo jamaaca iyo qabiil iyo koox kale oo qofkaasi uu la soconayo weeshanayo ma jiro. wa kulluhum aatiihi yowma alqiyaamati farda. qof kasta gooni ayuu ugu tegay. maadaama qof ilaahay subxaanahu wa tacaala loo hor istaagayo arrin aad iyo aad u naxdin badan wey. rekordkaagii iyo waxaadii oo dhan marka lagu soo hordhigo waxaan u baahannahay marka inta aan dunida joogno ee ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaadka iyo caqliga uuna siiyey inaan ku xisaabtanno sidii innaga oo cashirkaas qaadan doono ilaahay hor istaagi doono dhaqankeenna, nolol maalmeedkeenna, caawinaadda dadka, xumaynta dadka markaan xumaynayno, kulli waxa aan samaynayno waxaad ogaanaysaa inay tahay wax innaga ama wax noo taraya ama hadhow dambe wax inoo dhimi doona. dadkan dunida ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa keenay, xigmaduna ka lahaa, wuuna ku camiray. ansha'akum min alardi wastacmarakum fiiha. isagaa nagu camiray, isagaana keenay. laakiin haddana qof waliba waxaan waa la ii qadaray, hebel inuu xumaado waa la qadaray. ilaahay subxaanahu wa tacaala xumaan qof u qadaray ma jiro. qof waliba laakiin waxaa la siiyey caqli iyo garaad uu wax ku kala qaybsado oo waxa xunna uu isaga ilaaliyo, waxa wanaagsanna uu ku qaato. waxaa loo baahan yahay marka qofka mas-uulka ah, qofka jagada haya, qofka miskiinka ah, qofka ardayga ah, qofka suuqa jooga, qofka waalidka ah, macallinka, noocu doon ha ahaado, bulshada noocyadeeda kala duwan. waxyaabaha aadka muhiimka ah waxaa weeye in arrintan aan ugu baraarugno si fardi ah, qof in loogu baraarugo. waayo qofku markuu hagaago waxay u badan tahay bulshadana inay hagaago. arrintan ma qusaysa keliya dadka bosishanada haya ama mas-uuliyiinta ah, waxay qusaysaa sidoo kale shaqaalaha caadiga. haddii aad shaqaalo tahay tusaale ahaan oo qofka maamulkaaga uu ku amro ama uu ku faro inaad samaysid wax qalada ama anshaxa shirkaddii aan laga ogolayn ama diiniyan arrintaasi aan loo ogolayn, ma dhihi kartid aniga waa la amray, aniga ma'muuran aha, ma dhihi kartid. haddii wanaag uu kuu amro ama uu kuu diro raac. haddii xumaan iyo waxyaabo kale uu keenan waa inaad ka reebtoontaa. shaqaan waynayaa, jagada inaad ka tagaa laga yaabaa, ikhlaa ba'as. haddaad waysina ilaahay subxaana wa tacaala ku arkaya inaad ku waysay arrintan isaga dartiis iyo ilaalinta mawaaqiftaadii inaad ilaashtid. marka aad iyo aad muhiim u tahay in qof kasta uu dib isu xisaabiyo tallaabadan uu qaadayo ma tahay tallaabadii hadhow markuu ilaahay hor istaago keligii su'aalaha ka imaan kara uu ka jawaabi karo. abubakar waxaa laga hayaa hadda ka hor in uu yidhi ayuha annaas, dad yahow, isagoo la hadlaya dadkii, qad wulliitu calaykum walastu bikhayrikum fain axsantu faaciinuunii wain asa'tu faqawimuunii. dad yahow, aniga ayaa amiir idin ahood i doorateen, laakiin micnaheeda ma aha aniga kan idinkugu fiican inaan ahay. haddaad i aragtaan anigii oo wanaagsan oo wax wanaaga samaynaya, alxamdulilaah, oo igu caawiya arrintaas iyada. laakiin haddaad i aragtaan anigoo qalloocan oo wax qalad samaynaya, dee waa abubakar qofka hadlaya ogow. itoosiya oo ila hadla oo waxaad tidhaahdaan saan lama ogolo, abubakaroo sidan sax maaha, saan maaha nahaya. marka qofka marka meel loo magacaabo ama shirkad ha ahaato ama ha ahaado meel bulsho oo ka dhaxaysa sida jagooyinka dowladda nooc kasta, waxaa loo baahan yahay tiimka ku hareeraysan in uu iska fiiriyo. tiimkaasna uu si cad ugu amro, ugu sheego, yidhaahdo war heydha, haddaad i aragtaan anoo lumaya i qabta, haddaad aragtaan anoo toosanna i caawiya oo hore aan u sii soconno. waayo guusha ninka hogaamiyaha ahi waxa ay furi kartaa futuuxaad tiro badan. isagoo hagaaga waxay furi kartaa ummadoo dhan in ay hagaagto. waxyaaba innaga aan iska yaraysanaa jira oo laakiin marka la eego aad iyo aad u waaweyn. masalan asxaabtii oo kale waxyaabaha laga wariyay waxaa ka mid ah, cali ayaa u yimid cumar bin khadaab. cumar markuu u yimid yaa amiir almu'miniin ayuu dhahay, isagoo su'aal weydiin doona, ayuu wuxuu yidhi dhegayso, ma waxaad noogu timid arrin adiga ku qusaysa, mise waxaad iigu timid arrin bulshadaas islaamka qusaysa oo muslimiinta ay qusaysa ii kala sheeg. maxaa firqiga u dhexeeya u dhahay yaa amiir almu'miniin? mayuu dhahay firqi weynaa u dhexeeya.
haddaad arrin adiga aad leedahay aad igu timid nalka waan daminaynaa u dhah faynuusta noo daaran waa iska daminaynaa sababtoo ah muslimiinta iskale xoolahoodii wey haddii laakiin arrin guud aad igu timid oo bulshada ka dhaxaysa bulshadaas xoolahoodii weeye nalkaas wuu noo daarnaanayaa kadibna waan wada hadli karnaa shuuf cadaaladda iyo meesha ay gaarsan tahay iyo is-ilaalinta yacni waa nal shidan waa faynuus shidan oo bulshadii ka dhaxeeya wuxuu ku xisaabtamayaa xoolahan waa xoolo dowladeed haddaa maqashid xoolahan waa xoolo ummad ay leedahay micnaheedu waxa weeye ilaa haada alxad inay ilaaliso nal shidan weeye waxaa la ilaalinaya war dadka saa u hadlayeen waa cali iyo cumar haddii markaa anagu aan nafteeda u sheegno dhahno dadkaas dad kale ahaayeen dadkaas dad ilaahay subxaana wa tacaala hagayo haddaan iska dhaadhicino arrimahaas meelaha fashilka keenta wey waa ku qasbannahay inaan siday iyagu isu ilaalinayeen oo ay u taagsanayeen marka la eego diinta iyo cibaadadayda waa u baahannahay sidoo kale innaguna inaan isu ilaalino isuna xisaabinno maalin waliba insha allah